wanaagsan oo qurux badan oo caalamka oo dhami inoo bogay oo ilaa iminka laynagu ammaano Mary Harper shalayta markii ka hadlaysay BBC World Service ay sheegtay inuu yahay dalka kale isagoo la aqoonsanay dalka keliya ee dimuqraadiga ee doorashooyinku si isdabajooga uga dhacaan oo si nabadgelyo uga dhacaan maanta cabsidaa la qabaa sideeba u xakameynaysaa marka imika hooyaha gashaan dadka taageerayaashiina imikaynu aragnayo sidii Faysal Bayri mararka qaarkood ay dhacaysaa in meelo ay ka dhacdo in ama la yidhaha calamaa laga dejiyey ama la yidhaha xafiisyaa la xidhay marka sideebaad ugu ballan qaadaysaan dadkan ummaddan aad doonaysaan in madax u noqotaan inaydin doortaan inaanay khalkhal nabaddu ka gelin inaydu xakamaysaan taageerayaashiina oo marka marka lagu rigayaba ay nabadgelyo ay ku dhaqmaan loo baahan yahay strong man baa loo baahan yahay leadershipkan adduunka laga strong man baa jiro ina waxay la strong manka laga baqo oo kiya fiino kale ina waxay kale ixtiraamo respect the strong leader marka strong man waa loo baahnaa mid aan laga baqin oo dadka daldaline meel la ixtiraamo ayaa loo sharciga ayaa laga waxaan u sheegayaa dhalinyarta maanta halkan isku timi horta maanta inta aan joogay aan siyaasad ku jiray amba doorashada maanta doorasho uga warwar badanahay iyo qarankeena maalin uga warwar badanahay horta ma jiro aan u sheegayaa waxa weeye Riyaala wuxuu qabtay afar wuxuu qabtay doorasho qabtay afar taasba eesaan inagama dhiman eesaan kulmiya mid buu qabtay tii ugu xumee doorashada soo martuuha ilaahayna kala badbaadiyey khatar baynu galaayay adiga wixii samay dadna way ku dhinteenoo حقصور انت كلمة طوها قران صاحب احمد ما انت نوحي نبتقليه ما انت نوقع انت وحكوها يا عبد الرحمن ايه وحكوها يا موسى كوهي وحكوها يا نبتقليه الدولة اكوهي دولتي وحوي ايه ولي ماشي توتاي لصفتي موسى وحي سيني سابابورتي بيجيجي واردية وسيركي واردية عطاني ما كهذا يتيفيني وانا لا وحوي وإن قرونك اللي فالقرية قرونك وين لا فالقرية وسيرك شقدي سقف سراء بيجيك إذا دي بعد غوص يحسن بيجيك وحنقولي محفوظ كاخر وين موسى صوبح يبنى أنا صوبح وفيه وراء كل ما تسفر دحوه واي أديك حزب جاي أنا يعني حزب جاي وأنا جيت ما أنت تما قال مش هذا له قال كأنه نص صعبان أدعي له فهنقول بيننا بندت كان ها حكنا وقف كلير كي حتى أنا مكان حزب جاي الآن عند ما يكنترول كدقين هو مدور الدوام كله الله هو أنت جا أكبر أبرتين الكون بأبرتين البرامج هذا ترسو هي كان هو يسوي برامج إذا كان واحد برامج ولا نشره واحد ما يصير كده مركا وحوي وحن بلان قاضية واي بهاد القاضية وحن بلان قاضية إن حسب جيجا حلمها حسب جيجا إما لحظة يطلع يا شيدا إن الشرع إلاريان أو إن بتجينا سومالات كإلاريان وحفظ تركه وجواه غير كذا أنا بوحين لا يا شيء من بوحين ما إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى بقول كيف بقول بان كور رأسنا هاي ورشوا رأسنا السنة وقول عوا كل تذكر ميكروفون وهاي أو إنه كفاية بلان أما كهذا الميديا تي في إيو وبهران كلا لا خيالا
waxaan u baahan dhammaanteen inaynu dhanaga soo wajeesanno inaynu nabadgelyada ilaalno oo doorasho nabadu inoo dhacoon ka wada qayb qaadano dadku siday mas-uuliyadda u kala weyn u kala hayaanna xil gaaraa ka saaran inay dadka ku haruuriyaan ku amraan ku tusaaleeyaan in ay doorashada nabadgelyo inagu dhacdo oo wixii naga xumanayba laga daayo waan ku celinayaa xukuumadda iyo xisbiga kulmiye talada haya waajibka koowaad baa ka saaran ballanna waa idinku qaadaynaa in nabadgelyada shanta gacmood la isugu geeyo xisbi ahaan waxaanu ballan qaadaynaa taageerayaashayada inaanu si xoog iyo xooga intaanaan u sharxin borogaraamkayaga intaanaan noo codeeyo odhan aanu ugu horraysiino inu ku waarino nabadgelyada iyo doorasho wanaagsan oo xor oo xalaalaha noo dhacdo waxaanu ballan qaadaynaa dhallinyaradooda hadday fawdo sameeyaan inaanu sharciga kuwa ugu horreeya la mariyo ay noqdaan taageerayaasheedu oona mucaaridka oo dhan mucaaridkiibaa lahayaa la qabsaday lama qabsan xisbi kulmiye haddaba mikrofon caalamkuna maqlayaa jira taageeraha kulmiye ee ku xadgudba shuruucda doorashooyinka ama amnigu tusaale u noqonayaa xisbiyeedka waa ku gacan horeynaynaa si aan nabadgelyo u ilaalino waxaanu taa ku daraynaa inaanu u dhegan nuglaano cabashada mucaaridka cabashada inay ka soo jeedisay oo ah inay dowladdu xisbiga kulmiye iyo murashaxooda ku taageerayso waxaanu ku ogol lahay wixii sharcigu noo ogolayaana inaana naga cabanin wixii sharcigu aanu ogolayna aanu qaadanno wixii dhaliilanu galanu ka garawno maalan sharcigeenu wuxuu dhigayaa qofka ku yimaada siyaasad xil wasiirka madaxweynaha golayaasha la doorto ee baarlamaanka iyo ay ka mid yihiin dowladaha hoose waxay ku yimaadeen siyaasad iyo xisbi lama magacaabin shuruucda dimuqraadiyadda iyo dastuurka iyo xeerka sharciga ayaa siinaya inay xisbigooda u olayaan ila waaba shaqadoodii meesha ay ku yimaadeen oo ka soo baaragareen waxaanu ka garaamaynaa civil serviceka sida sharcigeena ay shaqo ku lahayn inay hoolaan galaan waxaanu kula ogolahay inaan hantida qaranku ay dhex noo tahay ee aan lagu dirin haddaanu ku gafano wixii galaaxyo hore nagu dhacayaanu ku qaadano darashadaanu ka bixinayno waanu weliba xakamayn doono mucaaridkana waxaa laga rabaa inay runna sheegaan oo aana noqon hasha dheela cuntaa cabaadee iyaguna sidaa sharciga dhibka u ilaaliyaan sidaasaynu ka helaynaa gudoomiye su-aal microfonka u daa gudoomiyaha su-aal